toddoba urur siyaasadeed oo kale ah xisbiga shaqaalaha, xisbiga xurriyadda, xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed, xisbiga midnimo qaran, xisbiga dadka iyo dalka iyo xisbiga isbahaysiga isbeddeldoonka Soomaaliyeed ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka maanta ka gudoomay shahaadada diiwaangelinta kumeel gaarka ee xisbiyada kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta guddiga ee magaalada Muqdisho oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka kala socday xisbiyada siyaasadda iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim ayaa sheegtay in xisbiyada looga baahan yahay inay la yimaadaan aragti wax dhisi karta ka hor doorashada. guddiga doorashada waa la hayaa sharciga doorashada hadduu gabagaba yahay waxaan rajaynayaa inaa active ku noqotiin siduu sharcigaas u soo bixi lahaa jiritaankiina ku xiran xisbinimadiina ku xiran doorashada ku xiran inuu soo baxo sharciga xisbiyada waa jira qaldaad badan way ku jiraan waxay u baahan yihiin saxitaan aad uma sii weyna laakiin adinkana hadda markii horena xisbiyada waa hor dhignay waxyaabaha isla aragnay inay xoogaa ay u baahan tahay in laga bedelo oo la taataabto wasaaradda arrimaha gudaha u gudbinay wasaaraduna waxay keeni doonaan baarlamaanka si amendmentkaas loo sameeyo intaysan intaas dhicin marka wixii ay u aragtiin in wax ay runtii ay u baahan tahay in la bedelo ama inay tahay dhibaato inay tahay ama inay ka hor imaan karto doorashada noo soo socoto hadda intay goortahay ka gaara isu imaada ka fariista ka hadla u gudbiya meesha qusaysa oo ah wasaaradda arrimaha gudaha. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka socday xisbiyada maanta shahaadada diiwaangelinta la siiyey ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan wax kasta oo lagu gaari karo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020. waxaan u mahadcelinaa khaasatan guddiga doorashooyinka gudoomiyaha iyo guddoonkooda juhdi weyn inay geliyaan dariimkan aan muddo dheer ku jirno inaan maanta Soomaaliya aanu dhex taagan aan xisbi aan ku magacaabnaa shaqaalaha Soomaaliyeed in dalkan doorasho ka dhacdo aad farxad weyn bay igelisay waayo riyo badan baan sugeeyay maanta Soomaaliya marxalad badan baan soo marnay. qabiilka dhabta ah ee la sheego waa dadka isku fikirka ah oo meel isu raaca qabiilku kan kale sida basashii ma istaago ayuu hadda meel gaaraa laakiin qabiil dhaba waxaad u tihiin qofka aad isku fikirka tihiin muxuu ahaayey kaas uu noqon doonaan ka ay ku dambeynaysa Soomaaliya inay wax isku darsato intii isku fikra. xisbiyada ilaa hadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku ay shahaadooyinka diiwaangelinta kumeel gaarkaas siiyeen ayaa gaaraya 22 xisbi waxayna sugayaan inay u gudbaan axsaab rasmi ah.